بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد، walaalyaal waxaan doonayaa maanta in aan idinla wadaago xogaha mawaadiic oo kooban oo ku saabsan bisha Ramadaan ee barakeysan ee fooda inagu soo haysa. haddii alla idmo kuwa gaara oo sooma, allah inaga dhigo kulligeennaba. balse marka hore waxaan ku horeynayaa bisha Ramadaan waxa loogu magac daray Ramadaan ayaan ku bilaabayaa hadduu alla idmo. bisha Ramadaan culimada waa isku khilaafeen fasirkeeda. waxaan ula jeedaa ereyga Ramadaan. culimada qaarkood waxa ay ku sheegeen magac ka mid ah magacyada Eebe subxaanahu wa tacaala in uu ka soo jeedo. waxa ayna ku caddeeyeen ama daliil ahaan ay uga dhigeen arrintaasi ama fasirkooda ay ku xoojiyeen ramadaanka inuu yahay shahrullah subxaanahu wa tacaala, maadaama allah uu yidhi bisha soonqaad aniga ayaa iska leh. halkaas iyo iyagu ay ku tiiriyeen oo xadiid qudsi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi kullu caam ibni aadam lah ila soom fa innahu lii. marka iyagu halkaas ayay ku saleeyeen xujadooda ama fasirkooda ay ku saleeyeen oo waxay yidhaahdeen bisha Ramadaan magaceeda waxaa lagu saleeyay, waxaa laga soo qaatay magac ka mid ah magacyada Eebe, maadaama alla uu yidhi Ramadaan aniga ayaa iska leh, bisha Ramadaan waa bishayda uu yidhi. qolo kale laakiin oo culimada ka mid ah iyaguna waxa ay sheegeen in ereygaasi laga soo qaatay asal ahaan masdarka ah arramdu in laga soo qaatay ee micnaha u taagan kulka sida aadka u daran. oo bisha Ramadaan inta badan waxa ay dhacdaa xilliga kulaylaha ay dhacdaa ama samarka ay dhacdaa. waxayna fasilkooda ay daliil uga dhigeen maalin maalmaha ka mid ah oo nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh ee uu soo galay masjidka Qubaa iyadoo asxaabihiina ay tukanayaan, markaas allah ka raali noqda ay tukanayaan salaada duxada ay tukanayaan. markaasuu suubanayna maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi salaatu alawaabiin idaa rumidat alfisaal, taasoo micnaheedu uu yahay salaada duxada ah xilligeedu waa waqtiga cadceeddu ay soo yar kululaato. waa rumidat alfisaal micnaheeduna waxa uu yahay xilliga ay kululaadaan nirgaha ama kulka ay dareemaan. waayo nirguhu afka carbeed waxaa lagu yidhaahdaa fisaal ayaa lagu yidhaahdaa. marka labadaa qaybood ayay u kala baxeen culimadii. qolo ku sheegtay inuu ka soo jeedo magac ka mid ah magacyada Eebe subxaanahu wa tacaala, iyo qolo ku tilmaantay ama in magaca laga soo qaatay maadaama bisha Ramadaan ay dhacayso xilliga kulaylaha ama samarka ay dhacayso. ramadaanku waa uu jiray, allah subxaanahu wa tacaala rasuulna ma uu soo dirin ummad ilaa uu ku farad yeelay soonka mooyaane. taasna waxaa daliil inoogu ah aayadda allah subxaanahu wa tacaala ee uu ku sheegay kana mid ah aayaadka qur'aanulkariimka weliba suuratulbaqara ku jirta ee ah yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. kuwuu rumeeyey allah subxaanahu wa tacaala isla mar ahaantaan adeeca risaaladii allah subxaanahu wa tacaala ugu soo dhiibay rasuulkiisa maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh kutiba waxaa laydinku waajibiyey calaykum dushiina asiyaam, soon ayaa laydinku waajibiyey kamaa kutiba sida loogu waajibiyey oo kale cala aladiina min qablikum ummadihii idinka horreeyey lacallakum waxaad xaqiiq ku tihiin markaa in aad tattaquuna, inaad allah adeecdaan, allah taqwadiis inaad raacdaan, allah inaad ka yaabtaan, allah inaad ka cabsataan. marka soonku mid annaga inoo gaar maaha oo ummadihii naga horreeyey ayuu muxuu ah allah uu ku farad yeelay ee rusushii loo soo diray ay muxuu ahaa ay gaarsiiyeen.
su-aasha meesha ka soo baxaysa waxa ay tahay marka haddaba goormaa ayaynu soomaynaa? soonka ruuxeesa ayuu ku waajibaa. soonku waxa uu ku waajibaa gabadha iyo wiilka muslimka ah iyo muslimadda ah ayuu ku waajibaa ee iyagu markaasi qaangaaray dhimirkoodana uu hagaagsan yahay. waajib kuma aha ruuxa waalanaya maskaxda wax ka qaba, waajib kuma aha. soonku waxa uu ku waajibaa gabdhaha mu'minaadka ah iyo wiilasha mu'miniinta ah ama ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka ah ayuu ku waajibaa ee markaasi maskaxdooda ay fayoodahay ee qaangaaray. waxaa asal ah qofka inuu qaangaaro. haddii isagoo yar uu bilaabo soonka, maa sha allah, allah subxaanahu wa tacaala ajarkaas waxa ugu buuxinayaa waalidkooda ayuu ugu buuxinayaa. sida aawadeed suubanayn maxamed ah salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu inoo sheegay waqtiga aanu soomayno, wuxuuna yidhi suumuu liru'yatihi wafturuu liru'yatihi. markii la gaaro oo ay dhammaato bisha shacbaan oo ay bilato bisha soonqaad, haddii aad aragti aad isha saartaan in ay bilatay bisha soonqaad, ku sooma ayuu yidhi, aragtida ku sooma. wafturuu ku afura liru'yatihi, waxaad la soonka ku furtaan markii aad aragtaan bisha shawaal in ay bilatay. fa in qaaba calaykum, haddii bisha soonqaad ay idin muuqan weydo, maalinta shacbaan ay dhammaato oo tirsigeeda uu dhammaado, habeenkina aad eegtaan oo idin muuqan weydana, fakmiluu 30, bisha shacbaan 30keeda dhammaystira, markaa kadib sooma. marka suubanayn maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi suumuu liru'yatihi wafturuu liru'yatihi fain qaaba calaykum fakmiluu 30. haddaba waxaa sunno ah oo aad u wanaagsan ruuxa muslimkaahi ama gabadha muslimaddahi marka ay arkaan bisha ramadaan ay barakaysan inay ku ducaystaan oo ay yidhaahdaan ilaahayow bisha ramadaan ee maanta inoo bilatay nooga dhig bil noo sida iimaan iyo hanuunkeena noo ziyaadisa, nabad iyo nabadgelyo iyo barwaaqana inoo horseeda. in ay ku ducaystaan ayaa aad u wanaagsan, sida asxaabii nabigeena maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh ay ku ducaysan jireen. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال ورشد وقير. هذا بقى صومك سيدي أيان أسومينا روحا صوميا وحواجبه إن عنده كجوك سدو مركا فجر كأولشو وكسو من هذا عنده يعبد inta qorraxdu ay ka dhacayso ama gabalka uu ka dumayo. marka habka loo soomayo waxa ay tahay in cunada laga istaaga cabista marka laga bilaabo fajarka marka uu dhasho ilaa ay qorraxda inta ay ka dhacayso. waxaa kaloo waajib ah soomanuhu cunada iyo cabidda keliya inaanu ka soomine ee uu ka soomo waxyaabaha muxaramaadka ee alla uu ka xarimay ee aan wanaagsanayn ee soonkiisa wax u dhimaya, sida xanta, beenta, khiyaanada, shaatu zuurka, dulmiga, dilka iyo wixii la mid ah. intaba inuu ka soomo ayaa waajib ah. waayo suubanayn maxamed salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu ku yidhi xadiid ka mid ah axaadiistiisa, man lam yadac qawla zuur, qofkii aanan ka harin been sheegista walcamalu bi iyo ku camal falisteeda, falaysa lahu min allah من أن يدع طعامه وشرابه. فليس له من الله بحاجة من أن يدع طعامه وشرابه. قفك آنن كزول أما آنن كهرن أو آنن كتجن خيانة يبنت أي حنت أي وحيابها لمتك أي محرمات مركان شيئا يصوم وعايز كون أحسن. هذا ما دام سيداس أو كعمل فلا يسوى صوما أو وحيابها سو صومين أيوه. وحاول أحسن إنه إسكعون النذي سيعبستيس أيوه سبحان محمد السلام عليه. sababta ilaahay uma baahna inuu dartiisa u gaajoodo, waayo waxyaabihii la faray ee soonkiisa wanaajin lahay ajarka badan uu ku heli lahaaba kama uusan harin. marka ruuxa saa'imka ah iska ilaali
beenta ay wixii la halmaala si soonkaagu uu u noqdo soon muxuu ahaa ajar fiican aad ku hesho. waxaa habboon sidoo kale ruuxa soomanaha ah afurka inuu dedejiyo, marka sidaa loo eedaamaba inuu afurka uu hore uu ka cuno ayaa wanaagsan, waa sunno iyadana. sidoo kale waxaa habboon suxuurtana inuu xoogaha yara dib u dhigo si soonkiisa maalintii uu ugu helo awood uu ugu sii adkaysto inta laga gaarayo qorax dhaca inta laga gaarayo. markuu afurana oo eedaanka uu dhaco afurana waxaa habboon iyadana inuu ku ducaysto ducada ah, ilaahayow adiga ayaan kuu soomay, risaqaagiina waan ku afuray, haraadkii waa uu tegay rabbiyo, dhididkii hayena waa uu qaboobay maadaamaan biyo cabbay, ajarkina wuu ii sugnaaday insha allah. oo waxaa wanaagsan qofka inuu ducadaas ku ducaysto markuu afuro. allahuma laka sumt wa calaa risqika aftart ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. haddaba waxaa wanaagsan walaalayaal fursaddan inaynu ka faa'iidaysano oo sinna aanay inoo dhaafin bishan ramadaan ee barakaysan fadaa'isheeda ee allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi ruuxa saa'imka ah iyo gabadha saa'imada ahi camal kastoo ay la yimaadaan waxa ay helayaan camalka ay camal faleen ajarkiisa inta uu la egyahay. soonkase allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi aniga ayaa iskale, aniga ayaana addoonkayga ka abaalmarinaya. marka allah subxaanahu waa inoo qariyey jaa-isada iyo abaalmarinta aan ku helayno soonka. marka waxaa wanaagsan in sinna aysan noo dhaafin bishan dhowrka maalmood ay ka hartay ee soonka ah ee allah uu ka fadliyeeday, kunka bilood uu ka fadliyeeday. marka ay soo degatay aayadda ah shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaas wabayinaati min alhuda walfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum. nabigeen maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh intuu soo cararay ayuu bilaabay in uu u bishaareeyo asxaabtiisa uuna ku yidhaahdo asxaabiyahay waxaa idin yimid, waxaa idin timid bil barakaysan, waa bisha ramadaan oo allah subxaanahu wa tacaala acmaasha abaalmarinteeda uu laalaabayo, uu laba jibaarayo iyo wax ka badan una siinayo. marka ha laga faa'iidaysto ayuu nabigeen maxamed ahaa uu ku dhihi jiray asxaabtiisa. halkaa marka aynu joogno walaalayaal waxaa soo baxaysa su-aal kale oo ah iyadana maxaynu u soomaynaa? 3 sababood dartooda ayaan u soomaynaa. sababta koowaad waxa ay tahay soonku waxa uu nagu duwayaa oo nagu hagayaa waddada alla ka cabshada, taqwada iyo allah subxaanahu wa tacaala adeecidiisa ayuu nagu hagayaa. sida aan hore usoo sheegaba oo aayaddan ay noo tilmaamayso oo ay leedahay lacallakum waxaad xaqiiq ku tihiin tattaquuna in aad adeecdaan oo aad ka cabsataan oo aad ka yaabtaan rabbigiina. yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. sababta labaadna waxa ay tahay dhammaan kutubada samaawiga ah ee allah subxaanahu wa tacaala uu inoo soo dejiyey waxa ay soo degeen giddigoodaba bisha ramadaan ee barakaysan. kutubka ugu horreeyey ee xagga samada inooga soo degay waxa uu ahaa kitaabkii zabuur ee lagu soo dejiyey nebi daa'uud calayhi salaam. waxaan la soo dejiyey bisha ramadaan ee barakaysan. midka ku xiga waxa uu ahaa kitaabka towraa ee lagu soo dejiyey nebi muuse calayhi salaam. isna waxaa la soo dejiyey allah subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi muuse sidoo kale bisha ramadaan ee barakaysan. kitaabka injiil ee allah subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey nebi ciisena sidaasi la mid ahi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey bisha ramadaan ee barakaysan. kitaabkeena qur'aan kariimka ee lagu soo dejiyey xabiibkeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh, xabiibullah almustafa sala allahu caleyh wasalam, isna waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan ee barakaysan. sababta aan u soomayno oo labaadna waa sababtaas. sababta saddexaadna waxay tahay iyaduna waxa ay soo gelaysaa baabu shukr, baabka mahadnaqa ayay soo gelaysaa. oo manfaco ayaa dhacday, oo faa'iida ayaa dhacday,
oo dadka muslimiinta ah markaas faa'iido u leh oo marka ay u soomayaan maalintaasi allah subxaanahu wa tacaala ay ugu soomayaan si ay ugu mahadnaqaan. tusaalahan soonka cashuuraa, nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh markii uu madiina yimid ayaa waxa uu arkay yahuudda oo iyagu soomaya cashuuraa, maalinta cashuuraa. kolkuu weydiina waxa ay ugu jawaabeen waa maalintii nabi muuse nabigeennii uu ka badbaadiyey fircoon. markaasuu nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh waxa uu yidhi markaa annaga ayaaba ka mudan, sidaa darteed waxa uu faray markaa in aynu soonno maalinta cashuuraa, ama maalin laga horreysiiyo ama markaa ruux soomay maalin uu ka dambaysiiyo. sidoo kale waxay soo gelaysaa baabka mahadnaqa oo nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh marka la weydiiyey sababaha uu soomayo isniinta iyo khamiista ayaa wuxuu yidhi maalinta isniinta waa maalintii aan dhashay. sidoo kale waxa uu yidhi maalinta isniinta waa maalintii la isoo bixiyo malkul jibriil ugu soo degay oo suuraddii ugu horreysay ee qur-aanka laygu soo dejiyo ah iqra bismi rabbika alladii khalaq. iqra nabi maxamed akhri, isagoo waxba akhrin waxna qorin lagu yidhi iqra yaa maxamed, uu malkul jibriil ku yidhi iqra bismi rabbika, magaca rabbigaa akhri alladii khalaqa, allihii abuuray adduunka koonkan iyo waxa ku sugan iyo waxa dhexdooda ah, waxa ku nool oo dhan, wax aan nooleyn intaba allihii ku abuuray, bal akhri magace. marka nabigeen maxameda waxa uu yidhi waa maalinta laysoo bixiya uu yidhi. marka ugu horeysa wuxuu yidhi waa maalinta aan dhashay, marka labaad wuxuu yidhi maalinta laysoo bixiyey, marka saddexaadna wuxuu yidhi waa maalinta aan hijrooday oo aan marka ka hijroodo madiina aan hijrooday. marka afraadna wuxuu yidhi waa maalinta aan rajaynayo isniinta inay noqoto maalinta aan la kulmayo allahay rabbigay weynaa subxaanahu wa tacaala, maalinta eebba aan la kulmayo in ay noqoto ayaan rajaynayaa ayuu yidhi nabigeen maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh. oo isniinta waxaa u soomayay markaa in uu u mahadnaqo rabbigiis oo waxay gelaysaa baabu shukr. sidoo kale isniinta allah subxaanahu wa tacaala waxa uu rafacaa acmaasha addoommadiisu ay sameeyaan ayuu rafacaya oo nabigeena sidaasuu sheegay waa maalinta acmaasha la koryeelayo. khamiistan waa sidoo kale waa la mid oo marka waxaa ay gelayaan marka baabu shukri ayay gelayaan ama baabkii mahadnaqa oo manfaca ayaa dhacday. manfacadaas oo ah nabigeena inuu dhashay, lasoo bixiyey, hijrooday, uu haddana rajeeyey inuu allihiisa maalinta isniinta ah. khamiistana iyo isniintana waa maalinta acmaasha la koryeelayo, marka baabkaasay gelaysaa. allah subxaanahu wa tacaala walaalayaal wax muxuu ahaa oo naxariis allah subxaanahu wa tacaala uu naga reebtay ma jirto. diintiina waxuu nooga dhigay diin yusri ah oo sahla. marka meeshan waxaan u joogno waxay tahay inaan sahay sii qaadano oo accountigeena savinka aan sii buuxsano. marka ruux bini aadamka waxay tahay inuu u fakero sidaas. waxaad maqlaysaa maanta hebel shalayuu tegay, saakay wiilaa u dhashay hebel. marka adduunyada waa sidaas, kuna waa dhalanayaa, kuna waa sii socdaa. adigana marka waxa ay dan kugu jirtaa aad waqti haysataa inta aad nooshahay ayaad waqti haysataa. marka waa inaad waqtigaaga aad u badisaa ku camalfalida cibaadada, acmaasha wanaagsan, khayrka aad ka shaqaysaa, dadka aadan dhimin, dulmi aadan dadna u horseerin. waxyaabahaasa loo baahan yahay in aynu ku mashquulno, maaha inaynu inagu isku mashquulno maaha. cumar bin khataab xilligii khaliifku ahaa ayaa maalin maalmaha ka mid ah, weli waxaan ku jirnaa baabu shukrigaan ku jirnaaye, waxaa u yimid nin oo ka mid ah dadkii madiina deganaa. markaasu wuxuu ku yidhi cumar bin khataabo, kitaabka qur-aan kariimka waxaa ku jirta aayaddaasna wuxuu yidhi hadday anagu nagu soo degi lahayd, haddaan nahay macshar yahuud, haddaan yahuudi nahay, hadday aayaddaas anagu nagu soo degi lahayd maalintaas waxaan u ictibaar lahayn oo aan ka dhigan lahayn ciid. sayidina cumar bin khataab allah ka raali noqdo waa uu yaabay. wuxuu yidhi markaasuu ninkii su-aal kale u celiy, wuxuu yidhi warniyo aayaddaas maxay tahay? markaasu wuxuu ku yidhi aayaddaas ay ku jirta kitaabka qur-aan kariimka waxay tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan. marka wuxuu yidhi aayaddaas de annaga macshar yahuud haddaan nahay, hadday nagu soo degi lahayd maalintaa ciid un baan ka dhigan lahay.
aayaddaasna waxay nabigeena kusoo degatay xajkii ugu dambeeyay ee wadaac ahaa ayay kusoo degatay oo uu soo khatimay risaaladii. xajkaa kadib nabigeena maxamed ama uu soo xajinin, allihiisa ayaa oofsaday, naxariista alla ayuu u gudbay, uu u wareegay. dabadeed cumar bin khataab wuxuu yidhi markaa maalinta ee carafaadka ee nabigeena maxamed ah oo xajatul wadaac uu khudbaynayo aayaddaasna ay kusoo uu akhriyey oo asxaabtu u akhriyey, wuxuu ku yidhi marka maalintaa waa inaanu ictibaarinaa oo aanu ka dhiganaa soon oo aan ugu mahadnaqayn ilaahay nicmadaas uuna siiyey oo ah in kitaabkii ama risaaladii nabigeena maxamed ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh lasoo gebagabeeyey oo aayadda ugu dambaysa ay soo degatay. marka walaalayaal, bisha ramadaan waa bil barakaysan. nabigeena maxamed ah salawaatullahi wasalaamu caleyh kolkii uu geeriyooday ayaa asxaabta aad ay u murugeydeen. waxaa weliba la sheegay si aada in ilinta looga joojin waaye abubakr sidiiq allah ka raanoqday iyo cumar bin khataab oo ka mid ah asxaabihii dadka ugu waaweynaa ka mid ahaa, ayaa aad ilinta looga joojin waaye. hase yeeshee waxaa ugu darnayd ummu ayman oo hooyada mu'miniinta ahayd oo iyadu sinna loo samrisiin waaye. kolkaasaa waxaa u tegay allah ka raanoqday cumar bin khataab iyo abubakr oo wada socda. markaase waxay bilaabeen inay samsiiyaan oo ay yidhaahdaan waa la dhimanayaa, ilaaha noo sheegay, nabi maxamed uuna soo gaarsiiyey, ummu ayman ay iska samir, wamaa cinda allahi khayran wa abqa inay yidhaahdaan. markaasay waxay tiri abubakr iyo cumaro allah idinka raali noqday, anugu uma oynayay tiri nabi maxamed dhimashadiisa oo allah subxaanahu wa tacaala ayaa oofsaday oo waqtigiisa ayaa dhammaaday, ajashiisa ayaa intaas ku ekay. laakiinse waxaan la ooyaya ayay tiri waxyigii oo naga joogsaday ayaan la ooyaya ayay tiri, oo maanta wixii ka dambeeyay waxay nooma soo degayo. waxaa sidoo kale soo baxday dood fara badan oo muslimiintu ay isla dhex mariyeen markaa oo ahayd nabi maxamed waa uu geeriyooday iyo maya ma uusan geeriyoonin. qaarkeeda waxaa la marsiin waayey in nabi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh inuu geeriyooday ayaa la marsiin waayey. dabadeed cumar bin khataab ayaa intuu fuulay mimbarkii ayuu seeftiisa galka ka saaray, markaasuu yidhi nabi maxamed ma uusan geeriyoonin, ruuxii aan ka maqlaana seeftaydaas ma arkaysa ayaan kurka kaga goynayaa. abubakar markaasuu soo baxay, wuxuu tegay guriga caaisha oo markaas nabiga uu ku geeriyooday. nabiga ayuu arkay, wejigiisa ayuu eegay, wuu xaqiiqsaday inuu nabiga geeriyooday, wejiga ayuu ka dhunkaday, markaasuu ku yidhi tibta xayan wa mayita. dabadeed abubakar wuu soo laabtay oo masaajidka hortiisu asxaabta ay dhoobanaayeen ayuu u yimid. dabadeed mimbarka ayuu fuulay, markaasuu wuxuu yidhi yaa ayuhannaas dadkanow war dadkanow wuxuu ku yidhi man kaana yacbud allah xaqan fa ina allaha xayin wa baaqi. ruuxii alla caabudo si xaqnima u caabudayay, ilaahay waa xayi oo waa ma dhinti, waa baaqi oo ma dhimanayo, sidiisa ayuu u joogaya allah subxaanahu wa tacaala. waman kaana yacbudu muxammadan, ruuxii caabudayay nabi maxamedna, nabi maxamed waa uu geeriyooday, saasuu ku yidhi. dabadeed wuxuu halkaasi ka akhriyay aayaddii ahayd wamaa muxamedun ilaa rasuul qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutil inqalabtum calaa caqibeyh waman yanqaliba calaa caqibeyh falaa yaduru allaha shay-a wasayajzi allahu shaakiriin. wuxuu yidhi nabi maxamed wuxuu ahaa rasuul ka mid ah rususha alleh, rususha la midka ahaydna sidaasoo kale ayuunbay u geeriyoodeen. haddii nabi maxamed uu geeriyooday ama la dilay, idinkuma waxaad ku laabanaysaan ciribtiinnii, acmaashiina hore miyaad dib ugu laabanaysaan? markaasuu nin alla ninkii hanuunka ka taga oo dib ugu laabta waxyaabihii jaahiliyada iyo foolxumada iyo shirkiga iyo ku laabta, walle alla inuusan wax ka dhibeen, ilaahayna wuu abaalmarin. ruuxii wanaag ku camal fala ilaahay aad buu u abaalmarinayaa. dabadeed abubakr kolkii aayadda akhriyey ayaa muslimiintu qalbigooda qaboojisay oo waxaad moodaysa aayadda in ay ku soo degtay markaas oo kale oo ay xaqiiqsadeen oo nin weliba wuxuu bilaabay inuu markaas
وعرب كوع العلي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله إن كوع العليان مركا ولا ليال وحا ميشان إنو قعد وحيقا إنو كقو أي نبي محمد قلبي جيسي كلك أوجيري وذي لكن آياتك الله سبحانه وتعالى إن أي كسو دقيان قلوبة مؤمنين تأه سببت الله سبحانه وتعالى وكتابك سكويري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها معناه وحوي هاي رمضان كور واحد أركيسان تدفر بدن وأنا لو أركين مساجد هذا وأنا لو أركين أعماش وناكسن وأنا تكرين أي الأركيسان ووقت يقول أنت بدن بقى كو مشغول صن هؤلاء كله هؤلاء دون إنسان مشغول صن لكن كل رمضان كله جارن وحد أركيسان ذكي وكو حرمي مساجد ذي قرآن كأخرين أي أعماش وناكسن كشقين أي الأركيسان marka taas macnaheedu waxa uu yahay adoonka ama gabadhaas adoomada ay sidaas yeelaysa in aayaadkii Allah subhanahu wa ta'ala inay bilaabeen in qulubtooda ay ku soo degaan oo cibaadada ay u soo muxuu ahaa u nuurayso oo ay wadada u hagaajinayso oo quruxda ay tusinayso oo iyaguna markaas ay dooranayaan inay ku amal falaan ilaahina waxaan uga baryaynaa in uu sii ziyaadiyo adoomada sidaas oo kala ah marka macnaha wuxuu yahay in aayadda markaasi ay ku soo degayso qulubtooda waayo qulubta qaarkooda aanan cibaadada ku jihaysnayn waxaa lagu tilmaamaa inay qofilan tahay marka cibaadada ay muxuu ahaa u soo jeestaan in ilaahay uu furay oo xirnaanta uu ka saaray oo cibaadadii markaas ay u soo jeesteen oo ay markaasi wadadii toosneed ay Allah uu ku duway marka sidaas Allah subhanahu wa ta'ala wiri afala yatadabbarun ma yana eegeen quraanka am ala qulubin aqfaluha nin kamid ay asxaabti ayaa maalmaha kamid ah waxa uu akhrinay suuratu nazi'at ayuu akhrinay dabadeed waxa uu gaaray aayada ah yas'alunaka 'an as-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikriha nabi maxamedo waxa ay ku su'aalayaan asxaabtaada saacada qiyaamaha xilliga ay dhacayso oo adigaba aad ka mid tahay mid ka mid ah calaamadaheeda markaas saxaabi markuu meeshaas marayo ayuu takbiirsaday takbiir uu la gooday markaas Allahu akbar Allah macnaha muxuu yahay aayadii macnaheeda ayuu dhuuxay oo qalbigiisa ku degtay marka aayadka sidaas qulubteena ugu soo degayaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa in sidaas qulubteena ugu nuuriyo aayadkiisa quraan kariimka inuu sidaas uu inoogu nuuriyo ayaa ilaahay ka baryaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa in subhanahu wa ta'ala جل شأنه وعلى إن ونوافجي وح خيرك إن نوافجي سي أن وفائدة سنو بشهر رمضان إيه بركة سن إيو بلاه كلا أو دم بإنتبع مركا روح إلهي وسوها جاي بشهر رمضان بركة سن وضد كلا إلهي وكسر لحينا إلهي وحنوجا برينا إن وضد إن إلهي ومحوها وناجد إن وتصيو إلهي وسن وكل المركا أيام إلهي وجبرينا أنا جنو حنسفرنا ضاع على الله سبحانه وتعالى ملك استو أنشوف نبأ إن إلهي ونقدو بش رمضان كلمة بالكستبة إن أنو سو تاجنانو إن أنو دورنا وحيابها واجباتك إن الله سبحانه وتعالى إن فرق وأنكو حرنا مرولي بقى الله سبحانه وتعالى أنكو حرنا مجرى الدون كم ده الدون ماذا دنيا ما أنت كنور أما هذا محوها مدحوينها مريكا هذا أما هذا الدون كأقول لي محوها جوجا ودمada meel kasto dunida kamid ah jooga hado ama hado muxuuha min shariif hado amid aan shariif ayna hado oo muxuuha adeega hado Allah xaqiisa waa loo sameeyay Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa waa loo sameeyay sababta Allah wuxuu ku yiri hadaad wax u baahato aniga uun i weydiiso cid kale iyo meel kale ay soo marmarin inni aqrabu ilaykum min habl alwarid إذا سألك عبادي عني فإني قريب ورهدي ما أنت وزير oo lagu sheego mid kamid ah muxuuha hadii aan tusaalaan u soo qaadano Soomaaliya xildhibaanadeena xildhibaan kamid ah maanta uu ku soo wuxuu kira warniyo berrito wasiirkan ku geynay oo balan aan ka soo qabtay waxa laga yaabaa maalinta inaad u dhowrayso sida muxuuha aad isu hagaajinayso isu diyaarinayso sida muxuuha nin balaayo oo adduun dhan maanta gacanta ku soo dhigaya
oo xildhibaanka markuu ku kaxeeyo oo lagu geeyo wasiirka ama madaxweynaha lagu geeyo aad is leedahay maanta adduunka hadduu ku kala kacay war maxaa kaaga fudud in allah subxaanahu wa tacaala xilliga salaada la gaaro oo la eedaamo aad soo baxdo aad masaajid gasho ama haddii aad masaajid joogno shaqa aad joogto shaqadaada allah subxaanahu wa tacaala oo diyaar ku ah oo martiqaadkaaga un sugaya aad la hadasho oo salaadaada aad xirato oo telefoonkaaga aad dirsato oo kuu baxo telefoonkaaga markuu kuu baxo waad tiraahdaa alxamdulilah bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay wadaa mahad iskale alraxmaan alraxiim allihii iskala hayo naxariistiisu ay ballaarneed oo ay kulminaysay adduunya iyo aakhiraba dadko dhan si guud ay ugu sineed alraxiim muslimiinta si gaar ah mu'miniinta si gaara ugu naxariista maalinta qiyaamaha iyaaka nacbud adiga aan ku caabuda oo iyaaka nastaciin oo khadkaaga uu kuu furmo allahaga maad weydiisata markaa ihdina siraata mustaqiim siraata ilaa iyo ducooyinkaaga wixii o dhan wataasaaba kaaga fudude maxaa addoon xuno oo adiga oo kale kula mid ah iyo isku xirkiisa oo iyo rajadiisa maxaa war ilaahay wuxuu ku yiri aniga wax waliba iga rajeeye anigaa kuu jooga halkan aniga ayaa ku abuurtay wax alla waxaad u baahantahay aniga weydi ayuu ku yiri allah subxaanahu wa tacaala marka ramadaan keliya mahe waqti kasta allah subxaanahu wa tacaala waa inoo diyaar laakiinse innaga ayaana laga rabaa inaan weydiisano aan daacad u noqon allahna subxaanahu wa tacaala maanta intaas ayaan kusoo gaabinayaa mawduucyo kalena insha allahu tacaala waa soo bandhigi doonaa oo ku saabsan bisha ramadaan ee barakaysan wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh